Soo dhawaada jaalayaal, tiimka Beta Squad waxay maanta ku tartami doonaan $10,000. Waxaan idiin sharxo qaabka ay u ciyaari doonaan. Waxay ku tartami doonaan challenge-yo kala duwan si loo helo guuleystaha $10,000. Waxay ciyaari doonaan 4 wareeg. Wareegga koowaad waa wax fahansiin, wareegga labaadna waa khayaano, wareegga saddexaadna waa adkaysi, wareegga ugu dambeeyana waa tartan aqooneed. Qofkii wareegga koowaad ku guuleysta ayaa lacagta u sii qaadan doona wareegga xiga, weliba isagoo heli doona dhibic dheeri ah. Wareegga koowaad waxaa la siin doonaa tartamayaasha 3 daqiiqo. Waxaa laga rabaa in qoftan ay la sheekaystaan, iyagoo hadalka ugu dhex qarinaya 5 eray oo u qoran qofkiiba. Qofkii ay ka hesho ayaana wareegga xiga lacagta u qaadan doona. Asxaabta kalena banaanka ayay ka daawan doonaan. Kenny ayaa bilaaba wareegga koowaad. 5tii erayna isagoo la sheekaysanaya ayuu haddana isticmaalay, ilaa ay 3 daqiiqo uga dhammaanaysay. Waxaa ku xigsaday AJ. Markuu soo galo wuu ka naxiyaa, kadibna sheeko ayuu u galaa. Wuxuuna isla markii isku dayaa inuu erayadii la siiyay u isticmaalo. Wayna u suura gashay, waqtigiisana wuu dhamaystay. Waxaa ku xigsaday Nico. Si ka duwan kuwa kale ayuu sameeyay. Inta uu u soo dhawaado ayuu la sheekaystaa, isagoon moogeen erayadii loo diray. Sidoo kalena iska gadaya qofta si uu u noqdo qofka ugu dhibcaha badan. Waxaa intaas u dheeraa inuu baray hab salaameed labadooda ka dhaxayn doona. Markuu baro waqtigana dhamaado, salaantii ayuu ku macsalaameeyaa. Asxaabtiisa waxay u qiraan inuu ku fiican yahay la sheekaysiga dadka waaweyn. Markuu soo baxo, Sharky ayaa ku xigsada. Wuxuuna dadaal u galaa inuu erayada u hoos qariyo isagoo u sheekaynaya. Nasiib darase hal eray ayuu ilaabay isagoo filayay inuu isticmaalay. Asxaabtiisa way ka warhayeen inuu eray ilaabay, markuu soo baxay ayayna u sheegeen. Chunks ayaana markan u soo gelaya, waana qofka wareeggan u dambeeya. Inuu isku falanqeeyo ayuu bilaabaa, iyo inuu Arsenal taageero, Bukayana uu saaxiib dhow leeyahay, tiimkana uu la shaqeeyo. Dadaalkiisa dheeraa wuxuu ilowsiiyey hal eray. Waqtiga ayaana ku dhacay. Waxaana la gaaray waqtigii ay kala dooran lahayd. Number 5 waxay u dooratay Kenny, Chunksna number 4, AJ number 3 ayuu ka soo muuqday, Sharkyna number 2, number 1na Nico ayaa galay. Sidaa darteed lacagta ayuu kula soo dabaaldegaa, balse weli lama gaarin waqtigii uu qaadan lahaa oo 3 tartan ayaa u dhiman. Wareegga labaad waa wareegga khayaanada. Qofka kursiga soo jeeda fariista waxaa loo keeni doonaa cabitaan. Markii uu cabo, tartamayaasha kale waxay weydiin doonaan nooca biyaha uu cabay. Iyaga ayaa laga rabaa inay soo saaraan inuu run ka sheegayo iyo in kale. Kadibna waxay u kala codeyn doonaan in qofkaas uu run sheegayo iyo inuu been sheegayo. Inta qof ee qalada waa inta dhibcood ee aad heli doonto. Sharky ayaa bilaaba. Marka uu cabo Coca-Cola ayuu ku tilmaamaa biyaha uu cabay. Waxayna sii weydiiyaan sokor la'aan miya. Waa noocyada raqiiska ayuu ku dhahaa, sonkor ayaana ku jirta. Chunks ayaa ka codsanaya inuu mar kale cabo. Nico oo kaliya ayaa Sharky uga codeeyay inuu been sheegayo. Inta kale way aamineen. Chunks ayaa ku xigay. Markuu dhadhamiyo wuu ku dheeraadaa inuu sheego nooca cabitaan. Kadibna orange juice ayuu ku dhahaa. Balse mar kale ku xesho ayay dhahaan, wuuna ka diidaa. Kadibna way u codeeyaan. AJ iyo Nico way aamineen oo inuu run sheegayo ay ugu codeeyeen Chunks. Balse Sharky iyo Kenny inay been tahay ayay u codeeyeen. Nico ayaa soo fadhiistay. Markuu cabitaanka cabo, isna cabaar ayay ku qaadataa, kadibna milkshake ayuu ku sheegay. Mar kale cab ayay ku dhahaan, asna wuu diiday, wayna u codeeyaan. AJ waa runtiis ayuu ku dhahaa, waxayna la tahay inuu qalad sameynayo. Kennyna run inay tahay ayuu u codeeyay. Sharkyna been ayuu u qaatay. Chunksna run inuu sheegayo ayuu ugu codeeyay. AJ ayaa ku xigsaday. Markuu cabay milkshake aanu ka helin ayuu ku tilmaamay. Mar kale inuu cabana wuu diiday, wayna u codeeyeen. Nico oo kaliya ayaa u codeeyay in AJ uu run sheegayo. Kenny, Sharky iyo Chunks waxay u codeeyeen inuu been sheegayo. Kenny oo ahaa qofka ugu dambeeya ayaa cabitaanka loo keenaa. Isaga markuu cabo wuxuu ku sheegaa milkshake aanu ka helin, wayna u codeeyeen. Nico, AJ iyo Sharky inuu run sheegayo ayay ugu codeeyeen Kenny, halka Chunks uu u codeeyay inuu been sheegayo. Waxaa markan lasoo bandhigaa qof walba iyo nooca cabitaan ee la siiyey, haddii uu ka run sheegay iyo haddii kale. Sharky cabitaankii uu ku sheegay Coca-Cola sax ayuu ahaa. Nico oo been u maleeyay ayaana wax dhibic ah helin. AJ milkshake aanu ka helin ayuu ku sheegay, balse biyo caadi ayay ahaayeen. Kennyna wuu ka run sheegay wixii loo keenay. Chunksna waxaa loo keenay orange juice, Nicona milkshake. Nico wuxuu horey u haystay dhibic uu ku soo helay wareeggii hore. Isaga ayaana noqday wareeggan qofka ugu dhibcaha badan. Wareegga xigana isagoo faa'iido wata ayuu aadi doonaa. Wareeggan dhammaantood waxaa laga rabaa inay birtaas ku dhagaan, iyagoo dhulka ka ilaashanaya lugahooda. Qofkii haystaa waqtiga ugu dheer ayaana wareeggan guuleysanaya. Guuleystaha wareeggii hore wuxuu 5 sekin ka dambeyn doonaa tartamayaasha kale. Markay bilaabeen, 5 sekin kadib ayuu Nico ciyaarta soo galaa. Sharky wuxuu noqday qofkii ugu horeeyay ee sii daaya birta. Chunks ayaana ku xigay. AJ ayaa ku xigsaday. Markaana wuxuu loolanka ka dhexeeyaa Nico iyo Kenny. Nico ayaana isdhiibay, waxaana wareeggan ku guuleystay Kenny. Isaga ayaana dhibic faa'iidaha hore u qaadan doona. Wareegga ku xiga waxaa mid kasta la weydiin doonaa su'aalo Beta Squad ku saabsan. Qofkii ka jawaaba su'aalaha ugu badan ayaa lacagta 10,000 ah si toos ah u qaadan doona. Kaliya hal daqiiqo ayay haystaan si ay uga jawaabaan su'aalaha la weydiiyey. Jawaabtay mar sheegaan ka laabasho ma lahan. Waxaana su'aalaha lagu bilaabaa Kenny maadaama uu isaga yahay guuleystaha wareeggii hore.
Su'aasha koowaad wuu qalday. Su'aasha labaad oo ahayd Sharky meesha uu ku dhashayna Soomaaliya ayuu ku dhahay waana qalad. Su'aasha saddexaadna wuu qalday. Si la mid ah midii afaraadna wuu qalday. Su'aasha shanaadna intuu qalday ayaa booskiisa lagu celiyaa. Waxaa ku xigay Chunks. Su'aashii koowaad wuu ka jawaabay. Su'aasha labaadna wuu qalday. Si la mid ah su'aasha saddexaad iyo afaraadna wuu qalday. Su'aasha shanaad intuusan ka jawaabin ayuu iska fariistay. Markii lagu qasbayna jawaab qaldan ayuu bixiyay. Nico ayaa xigay. Su'aashii koowaad wuu saxay. Inta hartayna wuu wada qalday. AJ ayaa ku xigay. Su'aasha koowaad ayuu saxay. Su'aasha labaadna wuu qalday. Su'aasha saddexaad iyo afaraadna wuu saxay. Midda shanaad ayuu haddana qalday. Waxayna u badan tahay inuu isaga guuleysan doono haddii uu Sharky qaldo 3 su'aal. Sharky su'aasha koowaad wuu saxay. Midda labaadna wuu qalday. Midda saddexaadna wuu saxay. Su'aasha afaraad ayuu haddana saxay. Haddii middan uu saxo isaga ayaa guuleysan doona. Balse wuu qalday. Maadaama AJ iyo Sharky ay bareejo noqdeen, waxaa loo soo bandhigaa in la kala saaro ama ay kala qaybsadaan lacagta. Chunks Janice ayuu meesha ka dhex arkay isagoo leh maadaama uusan qofna guuleysan lacagta min 2,000 aan u kala qaadano, balse Sharky ayaa ka diiday. Waxayna ku heshiiyeen labadooda inay kala qaybsadaan. Fadlan haddii muuqaalka aad ka heshay like noo saar. Mahadsanid jaalle.